lacagta shilinka Soomaaliga iyo lacagta shilinka Kenya waxay biloomeen 1948 ayagoo ku biloomay 5 shilin halkii doolar lagu sarfeeyey. 1950 ilaa 1970 labada lacagyo waxay ahaayeen stable ilaa 7 shilin ayay marayeen. 1970 ilaa 1980 lacagta Soomaaliya xoogaa yar 7 shilin ayay hoos uga dhacday ilaa 6 bay maraysay oo qiimaheeda ayaa xoogaa kor u kacay. Halka Kenya in yar kor ay ka saraysay 7 shilin. Laakiin 1983 markii la soo gaaray waxaa moodaa inay labada lacagyoba qiimo dhac xun ku yimid, gaar ahaan lacagta shilinka Soomaaliga oo saa arkaysaan garaafkan uga jeedaan ay baxad ka dhaaftay oo ku dhawaatay 500 lacag 500 oo shilin lagu sarfeeyay halka doolar 1989kii. qiimo dhaca ama sicir bararka saa u xun ee lacagta shilinka Soomaaliga ku dhacay maxaa sababay, maxaa keenay, ma dagaaladii dhacayba, ma dhaqaale xumo waddan ku dhacdayba. ujeedkaygu ma inaan ku faahfaahiyo halkan sababaha keenay, laakiin waxaan ujeedkaygu yahay inaan ku baranno sida loo sameeyo garaafka noocaan oo kaleeta anagoo isticmaalayna luqadda computerka u yaqaano oo Pythonka la yaqaano Python programming language, gaar ahaan library-geeda loo yaqaano Matplotlib. Haddaba aan bilowno sidii aan u sameeyey. Waxaan tusayaa step by step. Datada aan isticmaalayay waxaan kasoo qaatay website-ka UN ku leeyahay data.un.org, halkan saa uga jeedaan. Kadib Somali exchange ayaa ku dhufanaysaan, exchange rates ayaa ku dhufanaysaan oo lacagta Soomaaliga. Waxaan isticmaalayaa notebook loo yaqaano Jupyter notebook, laakiin waxaa isticmaali kartaa kabda kii kuu fudud sida Google Colab oo kaleeto waa isticmaali kartaa. casharadeenii hore aan kusoo isticmaalayay. Tilaabada ugu horeysa aad qaadaysa waxa weeye inaad labadaba soo import garaysid. Library aan isticmaalayna waxaa la yidhaha Matplotlib. Sidaan ayaa loo soo koobiyaya. Haddaad Google garaysid Matplotlib import haddaad tiraahid waa arkaysaa haddaad spellingka garan weydid. Marka kadib waxaa leedahay enter. Tilaabada xigta aan qaadaynana waxa weeye inaan datadeenii aan kusoo shubanay computerka hadda isticmaalayo desktopkiisa inaan soo degsado soo qaato. Marka hadda waxaan sameeyey shillings ayay igu save garaysan tahay, titleka igu save garaysan, formatka ii tahana waa CSV. Marka datadii waxaan kusoo samaysanay data frame, pandas data frame oo aan casharadeenii hore kusoo baranay. Kadib haddaan intuso dhowrka line oo ugu horeysa datadeeni saana u eg tahay shilling Soomaali igu save garaysanayd. Laakiin waxaan sameynayaa wax la yiraahdo cleaning. saa hore ugu soo baranay pandaska waxay ku fiican tahay inaad datada manipulation ama ku samayn kartid ama wax ka tirtiri kartid ama wax kusoo diri kartid. aan ayadana soo qaato Kenyan shillings asagoo K baa ula baxaya. variable rabtid ayaa la bixi kartaa, horey baan taa usoo baranay. si baan sameynayaa. waxaan filayaa waxaa igu save garaysanayd Kenya shillings .csv. ilmaamin haddii kale markaa yeelayo pandas markaa yeelayso. okay, wuxuu leeyahay ma jiro spellingka aan iska saxana. hadda hal l ayaa igu save garaysnayd. okay. hadduu titleka datadaadu ay ka duwan tahay wuu kaa diidaya. marka 5 number ugu horeysa Kenyan haddaan ku tusano ayadana waa saan oo kaleeto. marka saa arkaysid Kenya datada la hayo ilaa 2009kii ayaa ugu dambeysay. Soomaaliya datadan aan hayo ay ugu dambeysay 1989kii. waxaan rabaa inaan ilaa labadaba ka soo dhigo Kenya iska tirtiro wixii 89kii ka dambeeyay, kolomyadana iska tirtiro. marka cleaningkaasaan sameynaya la socda qaybta xigta. hadda linekan of codeka waxaan sameeyey cleaning ayaa sameeyey. kuna halkan saa u arkaysay sanadka gudihiisa hadda 1989kii ayaa waxaa la hayaa ila bilo badan buu ka kooban yahay. wuxuu ka koobnaa qiimayaal kala duwan, average-ka iyo xilli wuxuu ku xirmay suuqa iyo wuxuu ku furmay. marka waxaa rabaa keliya inaan soo qaato average-ka. marka waxaa idhi description-ka column-kan aad kadibna market average-ka ii soo qaata. waa ujeedaan datadeeni saana u eg tahay. linkana sidoo kale ayaan ku sameynaya sida Kenya ku sameeyey, sidaan Soomaaliya ku sameeyey ayaan ka wataa. ayagana waxaa rabaa inaan suuqa average keliya soo qaato. marka waxaa kaloo halkan sameynaya waxaan leeyahay 1989 wixii ka dambeeyay dhan drop igu sameeya sanadkan uma baahni
oo waxaan rabaa Soomaaliya inay isku mid noqdaan. Intaan number ka hayo Soomaaliya inta Kenya number ka inay isku mid noqdaan baan rabaa. Haddaan hadda dhaho dot head isticmaalo shanta line ugu horeysa oo ujeedaan 1989 ayaa ugu dambeysa Kenyana. Marka intaas waxay ahayd pandas ayaan isticmaalaynay library-ga loo yaqaano oo sida dataada macnaha loo soo qaato loo kelin gareeyo loo macnaha waxa aragtid kale lagala soo baxo. Hadda waxaan bilaabaynaa graafkii anagoo isticmaalayna matplotlib. Matplotlib waa library saan hore idinkugu sheegay loogu talagalay visualizationka ama soo bandhigida datooyinka si graphica ama sida animation ama casharadeenan ayaan ku baran doontaa masala soo socda ama kuwa kan hadda aan ku jiro. Marka waxaan kula talinayaa website-kooda caddaan oo macluumaad aad iyo aad badan uu ka buuxo. Tusaale ahaan website-kooda waxaa la dhahaa matplotlib.org. Kadibna waxaan ku dhuftaa exampleska tusaale ahaan bal kana haddaan ku dhufatid ayaa kuu sharxaya. Inkan wuxuu noo dhisayaa graafka. Graafka wuxuu ka kooban yahay x axis iyo y axis. Marka waa arkaysaan VIG waxay noo sawirtay ama noo qabatay inay noo sawirtay x axis iyo y axis. Subplot waxay noo dhisaysaa x axis-kan iyo y axis-kan. Kadib waan buuxinaa marka datadeenan ayaan ku buuxinaynaa ax-kan iyo vx-kan oo komada ku jirto. Waa sidii Python-ka oo kaleeto oo example haddaan halkan idinku tuso aan dhaho a comma b haddaan dhaho 2 3 macnaheedu waxa waye a haddaan dhaho maxay la mid tahay 2 b na haddaan dhaho maxay la mid tahay 3. marka ax-kan ayaan soo qaadanayaa waxaa leeyahay ax dot plot kadibna waxaan soo qaadanayaa data string Soomaaliga. Hadda waxaan plot gareeyay xilligii sanadkiina x axis-ka oo asan waxa inoo yaala sanadada. Waxaan soo qaatay datadeedii sanadka kasoo doortay waxaa ila sanadka column-ka sanadka iisoo qabo. Dhinaca y axis-kan waxa ay dhigtaa waa ila value qiimaha. Haddii aan marka rabo inaan u sameeyo graafkaygan title u sameeyo cinwaan waxaan leeyahay marka wax walba waxaan ka hormarinayaa ax set title waa function matplotlib library-gan oo isticmaalayo. waxaan rabaa hadda ujeedaan waxaan sameeyey title-kii. haddana waxaan sameeyey set x label oo asaguna ah dhinaca x axis-ka waxaa ii dhigtaa sanadkii. y axis-kana sidoo kaleeto ax dot set sidaa kaloo kale sameeyey meesha y x-ka y ku bedelanayaa. qiimaha ama value-ga ayaa halkaa la baxaya. waa ujeedaan hadda waatan. marka waxaa is weydiinaysaa sidee baan intaan taa u gudbin laakiin haddaan rabo hadda kan line buu ii yahay plotkan automatically line buu ku siinaya oo weliba colorkiisa blue yahay. laakiin haddii aan rabo inaan bar chart oo kaleeto ka dhigto ax dot bart ayaan leedahay. waa ujeedaan bar chart oo kaaga dhigaya. haddii aad rabto inaad kaaga dhigo scatter graafyada noocyo kala duwan ayay leeyihiin. waa ujeedaa sidaan oo kaleeto hadda datadeena saana laakiin haddii kale datadu kala duwanaan lahayd dhibco badan buu meeshaan yeeli lahaa. dhibac ka taal dhibac kale xagga taal. histogram oo kaleeto aan fiirino hadda inuu naga diidaa dhici karta maxaa yeelay histogram kaliya waxay rabtaa hal wax. marka aan line-keeni aan isticmaalo. marka haddii aan rabno inaan dul dhigno wax la yiraahdo
ama aan hal graph ku sameyno kan Kenya tusaale ahaan waxaan sameynayaa aan soo koobiyeeyo isku mid saan u sameeyey meeshan keliya waxaa iga bedeshaa Kenya ka dhig okay waan soo gaabiyey waxaan rabaa inaan Kenya lineka u daayo Soomaaliyana bar chart ka dhigo waa arkaysaan lineka aad ayuu u yaryahay maxaa yeelay scaleka lacagta Soomaaliya ay kacdayba 500 gaaraysa halka lineka si fiican ma arkaysaan haddaan ka dhigo lineka iyadana waa baran doontaan haddana waxaa sameyn kartaa method ka mida functionkan comma ayaa u dhexaysiinaysaa colorka ayaa qoraysaa haddana red ayaa qoraysaa hadda red waa kan lineka Soomaaliya waan ku dhahay scaleka ayaa wuxuu yahay scale aad u kala duwan marka casharkeena maanta intaas ayaa ku joojinaynaa la socda qaybta labaad oo aan sii wadayno casharada ku saabsan matplotlib aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin subscribe iyo like basaara asalaamu calaykum waraxmatullahi